safarka madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo ku sugan dalkaasi Israa'iil iyo ilaa Galabta kormeer ku soo marayay goobo taariikhi ah oo dalkaasi iska leeyahay haddaba madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo boggiisa Facebook ku soo qoray qoraal ayaa waxa uu dhignaa sidan waxaan Galabta booqday 3 goobood oo taariikh xusuus iyo qiimo gaar ah u leh dawladda iyo shacabka Israa'iil kuwaas oo kala ah Mount Health Yad Fashion iyo welibana God of Nation intii aan booqashadan ku guda jiray waxaan ku beeray geed astaan u ah qarannimada nabadda iyo xiriirka saaxiibtinimo ee u dhaxeeya Soomaaliland iyo Israa'iil booqashadani waxay ahayd fursad muhiim ah oo lagu xusayo taariikhda laguna fahmayo xusuusta iyo muhiimadda ay goobahani xambaarsan yihiin sida waxa qoray qoraalkan madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo ku sugan dalkaasi Israa'iil warbixin lamida inta aynu ku kulmi doono waanu Cabdisalaan Maxamed Badaa oo idin leh sida iyo nabadgelyo Soomaaliland dadkeeda Soomaaliland dadaalona tudsiyay Soomaaliland aqoonsiga dawladnimo Soomaaliland waylo dadaalaa Soomaaliland dadkeeda Soomaaliland dadaalona tudsiyay Soomaaliland aqoonsiga dawladnimo Soomaaliland waylo dadaalaa Somaliland 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 The stories remembered here remind us that even during humanity's most difficult moments, there are those who choose moral courage over fear and humanity over indifference. Their actions serve as an inspiration to all nations and all generations. As we reflect on their legacy, we are reminded that peace is strengthened when people choose dialogue over division, understanding over prejudice, and cooperation over conflict. On behalf of the Republic of Somaliland, I express deep respect for those honored here and for the values they represent. May their example continue to inspire leaders and citizens alike to build a more peaceful and compassionate world. Actually, environment is very important for the whole world. And in our country, the government has introduced a mechanism to plant trees each year. We are not as old as your organization. And we have a minister specialized in environment protection, Ministry of Environment and Rural Development. And we wish to share your experience and your knowledge in specializing in environment and saving the nature and planting the trees. We wish your cooperation with Somaliland as an organization. For the short brief, I understood that you have a lot of lands and a lot of resources. So hopefully we will have a small part of your resources in Somaliland. Thank you very much.